waxaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug booqasho ku yimid wafdi ka socday Midowga Yurub oo ay horkacaysa Marikal Ahmal oo ah u qaybsamaha khaaska ah ee Midowga Yurub arrimaha Afrika. waxaa sidoo kale isna wafdigan la socday Jeremy Lister oo isna ah xoghayaha arrimaha Afrika iyo ninka madaxda ka ah xafiiska Midowga Yurub ay ku leeyihiin magaalada Nairobi. waxaa sidoo kale wafdigan booqashadan ay ku yimaadeen magaalada Gaalkacyo ku weheliyay wariyaal ka socday wakaaladaha wararka faafiya sida Reuters iyo kuwa kale. wafdigan oo ka soo dhoofay magaalada Nairobi ayaa waxaa si diiran gagida diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta ugu sarreysa dawladda Puntland oo uu horkacay madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirro dhowr ah. isla markiiba waxaa la geeyay goobta ay ka degan yihiin madaxda magaalada Gaalkacyo halkaas oo uu shirka uga furmay madaxda dawladda Puntland iyo wafdigii ka socday Midowga Yurub. wafdigan oo sida la sheegay u yimid Puntland inay hubiyaan xaaladda dhabta ah ee ka jira arrimaha burcadbadeeda, horumarka bulshada iyo arrimo kale ayaa waxaa warbixin ka siiyay TV-ga Universal wasiirka wasaaradda deegaanka Cabdiqani Yuusuf Cadde. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم maanta waxaan ugu soo booqday magaalada Gaalkacyo wafdi ay hogaaminaysay Marikal Ahmal oo ah special envoy-ga EEC Europe ama Brussels una dhalatay dalka Sweden maadaama Sweden ay sanadkan hayso madaxnimada EU-da. waxaa la socday ninka u qaabilsan arrimaha Afrika Jeremy Lister. waxaa kaloo la socday ninka u qaabilsan Nairobi xafiiskooda EEC-da fadhiya. waxaa la socday xubno kale oo badan oo ka kala socday qaybo kala duwan. arrimaha u yimaadeenna waxay daneynayaan Puntland oo weligeedan hore u imaan delegation inta leeg inay soo booqdaan arkaanna waxa ka jira. realina fikradoodii way isbedeshay, wax badan ayaa iska bedelay. maanta aragtida ay halkaan kala kulmeen shirka halkaan aanu ku yeelanay tartaarna wuxuu ku dhamaaday si guul ah iyo jawi wanaagsan buu u dhacay. madaxweynaha Puntland dowladda Puntland Cabdiraxmaan Farolna wuxuu u gudbiyay qoraal ku saabsan ama ka jawaabaya aragtida Puntland, caqabadaha Puntland haysta, horumarka Puntland ay gaadhay iyo waxa ay mustaqbalka ay ka doonayso hay'adaha caalamiga inay ama ka caawinaan ama gacan kala geystaan ama ay ka wada shaqeeyaan. arrimahaas oo dhan si fiican ayaa looga wada hadlay. waa markii koowaad ay yimaadaan waxaanu rajaynaynaa inay marar badan soo noqdaan maadaama ay markaan si jawi wanaagsan oo aad iyo aad qiimiya qaayo u leh uu shirkaani u dhamaaday. Cabdilatiif Cabdiraxmaan Warsame, Telefishinka Universal, magaalada Gaalkacyo.